gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute oo maanta ka hadlayay shirweynaha toddobaad ee xeerlaaliyaasha Soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidamada loo yaqaan macwisleyda ee ka aasaasan qaar kamid ah gobolada dalka ay caqabad ku yihiin amniga guud ee dalka. Waxa uu sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in ay xal u keento arrinta macwisleyda oo uu sheegay in dambiye fara badan ay galeen la keenay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. Waxa uu sidoo kale dowladda ka dalbaday in maxkamadda la geeyo deegaanada ay ka aasaasan yihiin ciidamada macwisleyda. kiisaska aan qaadinay waxa kor u kacay wuxuu ahaa kiisas annaga marka horeba ammaan nagu ahaa oo ahaa kiisaska macwisleyda ee galaan maleeshiyaadka qabiilada. waxaa jira sanadkii 2022 xeer ay soo saareen golaha wasiiradu oo tilmaamayay in bacdama dagaal lagu jiro goobaha laga xureeyay argagixisada ay maxkamadaha ciidamadu sii qaadaan kiisaskooda muddo 3 bilood ah gudahoodna lagu sii dhisay 3 bilood hadda 2022 lama jooga amaleha. arrintaasi cabashadaasi wasiirka cadaaladda halkan fadhiyaan horta kula qabsaheena xaajadaasi hoos nooga dhigo maxkamadii in loo sameeyo ayaan dalbanaynaa culays badan inuu hayaan boqolkiiba 12 ay sanadkan kor u kacday arrintaasi arrinta macwisleyda ilaa ciidamada ay dilaan marayaan baa fahmaysan. ciidanka dadka deegaanka ee loo yaqaan macwisleyda ayaa waxay had iyo jeer ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka caawiyaan la dagaalanka maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab waana ciidan isku abaabulay. dowladda federaalka Soomaaliya ayaana ku dhiirigelisay in ay qoryahooda qaataan isla markaana ay deegaankooda ka xoreeyaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab.